guddida gacanta ku haysa dhismaha masjid jaamica magaalada Caynaba ayaa kormeer ku tagay halka uu marayo dhismaha masjidka oo haatan gabagaba ku dhow waxaana ay guddida ummadda muslimiinta u sheegeen in haatan uu galay masjidku fayskii saddexaad loona baahan yahay in laga qayb qaato dhamaystirka masjidkaasi ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida gacanta ku haysa dhismaha masjidka Maxamed Macali Xirsi iyo sidoo kale Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo mas'uuliyiin kale waxaynu isugu nimi maanta oo runtii aan anigu oran karo waa maalin qiimo weyn inaga inoogu fadhida inteennii tacabka xoogga ka gashay ee halka kan dhagaxa dhigtay bishii 9aad dhowr iyo 10keedii ayaan rajaynayaa inay ahayd maalintii aynu dhagax dhignay masaajidka kan aynu maanta hoostiisa joogno maalin ayaan filayaa inay ahayd ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ilaaha inala qabtay niyadii wanaagsanayd iyo juhdigii faraha badnaa ilaahaynu u mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'ala maanta mahadnaq aad iyo aad buu badan yahay ilaahay kiisa marka laga yimaado koow waxaan u mahadnaqayaa runtii oo aan mahadnaq ballaaran u hayaa maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr badan iyo xasanaad badan ha ka siiye intii halka wax ku soo darsatay ayaan u mahadnaqayaa wax dhintay laga yaabo qaar badan oo wax la baxay inay dhinteen laga yaabo in qaar badan nool yihiin oo aynu ka mid nahay qayb badan halka goobtan joogaan ilaahay waxaan uga baryayaa sadaqa tujaariya ayuunba adduunkan wax xara oo u socda qofka u baraka badan ilaahay ha inooga dhigo wixii wax ku darsaday halka sadaqa tujaariya ummadii wax la baxday in badan baa jirto masaajidka picturekiisa aragta maanta inay walaalayaal arkaan meeshii ay wax gashadeen ee aqalka ilaahay ahaa oo dhamayskiisii very close yahay aynu aad iyo aad ugu dhownahay dhamaystirkiisii ayaan rabaa iyagana inaynu tusno waxa kale oo aan ugu baaqayaa masaajidka fayskii u dambeeyay baynu ku jirnaa saxaafadii hore aan kaga soo hadalay shirkadii ilaahay barakeeyo way joogtaa fayskii hore waa bixinay kii labaad waa bixinay kii saddexaad ayaynu hadda u fadhinaa bixintiisii xogaa baanay naga dhiman fayskii saddexaad marka walaalayaal intaas waa horumar aynu hore u soo gaadhnay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inta inoo hadhayna inuu ilaahay inoo fududeeyo dhammaanteenba maanta halkan waxaanu ku joognaa guddidii masjidka dhisaysay iyo shirkaddii dhisaysay iyo waxgaradkii iyo culimmadii Caynaba iyo gobollada kaleba isaga yimi si aanu u soo eegno oo ugu kuurgalno mustajaamicii Caynaba halka uu marayo oo shalay ay ahayd markaynu dhagax dhigaynay dhowr bilood gudahoodna halka uu marayo maanta aynu arkayno insha allahu tacaala masjid in la dhiso oo ah buqcadda alla subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay iyo guriga alla subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay waxa la geliyaana ay tahay sadaqa jaariya oo inta lagu cibaadaysanayo ee lagu tukanayo ee quraan lagu akhrisanayo ee uu taagan yahayba ajarkiisu uu ku soconayo boqolaal sano ilaa an yaritha allahu alarda waman calayha inta adduunyada laga tegayo oo aan isleeyahay waa jaanis iyo fursad aad u qiimo badan ciddii alla subxaanahu wa tacaala u waafajiyo masjidkaas oo kaalin weyn ay ka geysteen dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed meelay joogaanba dadka deegaankan ha noqoto dadka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee muslimka meel kastaba jooga waxaan leenahay kii ka qayb qaatay alla subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro anigoo ku hadlaya afkii shirkadda dhismaha ee masaajidkan dhisaysay Barako Group waxaan yaro kooban ka warbixinayaa masaajidka iyo halka uu marayo masaajidka waxaanu bilownay dhagax dhigiisa saa uu sheegay bartamihii bishii 9aad si sheekhu sheegay maanta oo bishii 5aad bishii 9aad sanadkii 22 maanta oo 23 bishii 5aad lagu jiro masaajidkii intiisii badneed way dhisantay meel aad u wanaagsan buu marayaa wuxuu u baahan yahay in la khatimo la dhammaystiro culays lagu saaro sidii uu dhammaystirmi lahaa wuxuu ahaa masaajidku 3 face buu ahaa lacagta ku baxaysay sida sheekhu sheegay facekii koobaad iyo kii labaad waa la bixiyay facekii saddexaad baa harsan masaajidkiina waa idinka arkaya ma sha Allah halka uu marayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu qadaray inuu maanta halka uu soo gaaro intii la soo sheegay sababtii dadkii sababta u ahaa shirkaddii dhistay dadkii ehelka u ahaa khayrka ka qayb qaatay wax la baxay iyo kuwii iyaguna juhdiga badan geliyay sidii loo soo ururin lahaa ama loo soo hagaajin lahaa masaajidka dhismihiisii ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa
in ilaahi subxaana wa tacaala uu jannat alfirdowsa alaclaa uu ugu bedelo culimmadaa noo timi iyo masaajidkii oo maanta halkaa maraya farxad aan la soo koobi karayn baanu faraxsannahay haddaannu nahay reer Caynabo. dadka muslimiinta ah ee muxsiniinta ah ee caalamka daafihiisa jooga wixii aad la baxdeen iyo lacagtii aad la baxdeen masaajidka ugu tala gasheen waa taa way muuqataa waa arkaysaan waa aragtaan halkuu marayo ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo dhiso ilaahay haynoo dhiso waa sadaqa jaariya weeyaan oo waynu ognahay laakiin ilaahay haynaga aqbalo cid kasta oo beydka ilaahay juhdi gelisay iyo ficil gelisay iyo waqti gelisay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. maxamed bushaawi telefishinka